السلام عليكم. فيتنام sidee isu beddeshay dowlad ahayd mid ka mid ah dowladaha ugu dambeeya uguna saboolsan caalamka, dowlad magaceeda lagu xiri jiray dagaallo, qax iyo rafaad, inay isu beddesho mid ka mid ah dhaqaalayaasha ugu xooggan Aasiya. moobilka Samsung aad gacanta ku haysay shirkadda Kuuriyaanka leedahay waxaa lagu sameeyaa Vietnam. warshadaha sameeyay waxay ku yaalaan dalkan. mowduucan aan uga hadlayna mucjisada dhaqaalaha Vietnam wuxuu ku soo aaday waqti munaasaba. isbuucan aan ku jirna dalkaas waxaa looga dabaaldegay samaynta gaarigii ugu horreeyay oo si 100% loogu sameeyay dalkaas. shirkadda Vietnamese VinFast ayaa suuqa soo dhigtay gawaaridii ugu horreeyay ee dalkaas lagu sameeyo. waa gawaari heer caalami ah oo naqshado qurxan loo sameeyay. suuqyada carwooyin bandhigaadka caalamka kala duwan ayaana lagu soo bandhigay. inta aan gelin mowduuca intiisa kale aan ogaana macluumaad yar oo ku saabsan dalkan Vietnam. waa dal dhaca koonfur bari Aasiya, waxaa xuduud la leh Shiinaha, Laos, Thailand iyo Cambodia. ku dhowaad 90 milyan oo qof ayaa ku nool dalkan. haddaad fiiriso khariirada dalkan waxaad arkaysaa in uu ku teedsan yahay gacanka Tonkin iyo badda Shiinaha ee koonfureed. dhinaca magaalooyinka waxaa ugu weyn Ho Chi Minh oo markii hore loo yaqaanay Saigon ahaydna caasimadii koonfurta Vietnam intayna dib u midoobin. waxaa soo raaca caasimadda maanta ee Hanoi. Vietnam waxay ahayd dhulka dagaalada iyo duulaanada. dadka Vietnamiyiintan waa mid ka mid ah shucuubta ugu ba'siga iyo iska caabinta badan taariikhda. awoodo waaweyn ayay si xun ugu jebiyeen dhulkooda. waxaa ku duulay oo qabsaday quwado waaweyn sida duulaankii iyo gumaysiga Japan ee dhammaaday 1945. kadib waxaa ku duulay Faransiiska. waxaa xigay sidoo kale duulaankii Maraykanka oo labadaba ayagoo calanka cataaga ayay ka baxeen Vietnam. afartameeyadii waxaa ku dhuftay gaajo 10% shacabka Vietnam oo ku halaagsamay. waxaa sii dheer kala qaybinta dalka, abuuridda cadaawad iyo dagaallo sokeeye. ummad sidaas ahayd oo markii magaceeda la sheegay lagu xiri jiray dagaal iyo rafaad, siday u noqotay maanta mid ka mid ah dhaqaalayaasha ugu kobcitaanka badan caalamka, ahna qiblada maalgashadayaasha maanta. 1975 waxay ahayd sanadkii uu baxay askarigii ugu dambeeyay Maraykana kadib waqti dheer oo halaag iyo musiibo dagaala. Vietnamiyiintu waxay ku tiirsanayeen beeritaanka gaar ahaan bariiska. 75% shacabka Vietnam wuxuu ahaa xilligaas beeraley. laakiin dagaalka ayaa sababay gubashada beeraha. ciidamada Maraykanka ayaa si ula kaxa u gubi jira dhulka ayagoo le waxaan raadinaynaa oon baaraynaa wax iska caabinta Vietnam. kadib jabkii ihaanada lahaa ee Maraykanka ku qabsaday Vietnam laguna qasbay bixitaan karaama la'aana 75 Maraykanku wuxuu adeegsaday hubka cunaqabataynta oo ah mid ka mid ah qaababka ummadaha lagu jilciyo. cunaqabatayntaas waxay sababtay dhibaato xun oo soo wajahdo Vietnam. dhinaca cunaqabataynta 1991 ilaa 2003 dalka Ciraaq waxaa saarnaa mid ka mid ah cunaqabataynada ugu xun taariikhda. waddan shidaal ceegaago laakiin 1 litir aanan iibgeyn karin, taasoo keentay in 10,000 kun oo Ciraaqiyiin gaajo u dhintaan. intii soo hartayna dagaal ayaa lagu xasuuqay duulaankii 2003. haddaan ku soo laabana Vietnam, nin dagaal iyo nin dhaqaale waana Le Duan oo 1960 ilaa 1986 hogaaminayay xisbiga shuuciga Vietnam. waana ninkii xoogga ku mideeyay labadii Vietnam kadib jabkii Maraykanka ee ka tegay xulafadiisii koonfurta Vietnam si ay u wajahaan masiirkooda xun. Le Duan waxaa horyaalay waddan ebera una baahan in wax laga qabto. shacabkiisuna doomaha badaha isku gurayaan kuna halaagsamayaan. wuxuu dejiyey khidad aragti dhaqaalo muhiima. wuxuu xoogga saaray in hortu bal ay dadku dhargaan, in shacabku gaajada ka xoroobo. waana tallaabada ugu wanaagsan ee ummad lagu badbaadin karo, in shacabku una seexanin isagoo baahan. wuxuuna amray in xoogga la saaro wixii awalba Vietnam caanka ku ahayd ee beerashada, in dhulka la beerto, aadna xoogga loo saaro soo saaridda bariiska, taasoo ka dhigan in wax soo saarku bato. waana midda aan u baahannahay Soomaali ahaan. waxaan haysanaa dhul aad u ballaaran oo wax walba lagu beeri karo, laakiin dadkanaga ay gaajo u dhimanayaan. Le Duan wuxuu sidoo kale amray in dhinaca tiknoolajiyadda xoogga la saaro, laakiin ayadoo tallaabooyinkaas oo dhan ay jiraan wax natiijo la taaban karo dhaqaalaha Vietnam ma gaarin. sababtoo Le Duan wuxuu ahaa kaliga taliye aanan cid kale maqlaynin.
iyo inuu si weyn u dabaqayay siyaasadda hantiwadaagga fashilka wadata. nidaamka dhaqaale ee hantiwadaagga